Mararka qaar noloshu si degdeg ah ayay ku socotaa. Subaxdii ayaad toostaa, hawl ayaad gashaa. Maalmuhu waxay isku beddelaan toddobaadyo, toddobaadyaduna waxay isku beddelaan sannado. Intaad ku mashquulsan tahay sidii aad u noolaan lahayd, waxaad hilmaamaysaa inaad noolaato. Laakiin marka uu qofku gaaro xilli uu daalo, safar dheer kadib, waxaa maskaxdiisa ku soo dhacda su'aal aamusan oo ah: ma noloshan ayaan rabay inaan ku noolaado? Ma go'aanadayda anigaa leh mise waa la ii go'aamiyey? Haddii aan waqti dib u heli lahaa, maxaan beddeli lahaa? Dadka intooda badan marka ay da' noqdaan amba ay la kulmaan dhacdo noloshooda beddesha, waxay isku raacaan hal shay oo ah qoomamo. Qoomamadu ma aha qaylo, ma aha muuqaal dibadda ka muuqda, balse waa dareen degan oo gudaha kaa gubaya. Waa ereyga haddii. Tusaale ahaan, haddii aan isku dayi lahaa shayga, haddii aan qofka cafin lahaa, haddii aanan ka biqi lahayn dadka. Mawduuceenan maanta ma aha mid murugo keliya xambaarsan, balse waa muraayad aynu nafteena ku eegayno. Waa fursad aynu ku ogaan karno qaladaadka dadka kale ay ka qoomameeyaan si aynan inaguna berrito looga qoomin. Qodobada ugu waaweyn ee aynu mawduuceenan ku eegayna waxay ku saabsan yihiin oo ka hadlayaan waxyaabaha qofku markuu da' noqdo amba uu gaadho heer uu daalo uu isweydiiyo oo ka qoomameeyo. Qodobka ugu horreeya qof walba ka qoomameeyo waxa weeye cabsi ka hor istaagtay fursad uu ka faa'iidaysan lahaa. Qoomamada ugu badan ee la maqlo waa mid la xiriirta ganacsi qofku uu bilaabi rabay balse uu ka cabsooday. Fursad waxbarasho oo qofku dayacay cabsi darteed. Meel uu shaqo ka codsan lahaa oo shaqo u qalanta uu ka heli lahaa balse uu ka cabsooday. Cabsidu qofka waxay tusisaa fashilka ka hor inta uusan dhicinba, waxayna ku tiraahdaa bal maxaa dhacaya haddii aad ku guuldaraysato. Laakiin naftu kuma weydiiso iyo cabsidu kuma weydiiso maxaa dhacaya haddii aad guulaysato. Dad badan ma guulaystaan oo waxay ku guuldaraystaanba isku day ugu horreeya cabsi darteed. Marka cabsidu waa cadowga ugu horreeya ee qofka ka hor istaaga inuu guulaysto. Waana waxyaabaha ugu waaweyn ee qofku ka shanlaayo marka uu da' noqdo amba uu daalo. Qodobka labaad waxa weeye inaad u noolaato dad kale. Dad badani waxay u nool yihiin sida ay dadku rabaan, oo xor uma aha inay doortaan jidkooda mustaqbalka. Wuxuu wax u bartaa sida qoyskoodu rabo. Waxa uu doortaa fiilka amba fiilka waxbarasho ee qoyskoodu rabo. Isagoo raba inuu engineering barto naftiisu jeceshahay, ayuu rabitaanka qoyskooda dartood caafimaad amba engineer u baranaya. Wuxuu doortaa shaqo sharaf muuqata leh, balse qalbigiisu uu ku qanacsanin. Waxa ku noolaadaa nolol uu dadka tusayo balse uusan jeclayn. Marka uu qofku gaaro meel uu dib u milicsado, waxa uu dareemaa wax aad u culus oo ah anigu noloshaydan kuma qanacsan. Tani waa qoomamo qoto dheer sababtoo ah waqti lumay lama soo celin karo. Qodobka labaad waxa weeye ama saddexaadi xiriir burburay sababo dartood. Qoomamada ugu weyn waxa weeye waxay la xiriirtaa xiriirka ku saabsan dad amba hanti. Waalid aan la qadarin intuu noolaa. Waxaad ka qoomamayn doontaa in waalidkaaga aad qadarin weyday intuu noolaa. Waxaana ka qoomamayn doontaa marka uu dhinto adigoo limbiga sii deynaya. Saaxiib la kala fogaaday kibir darteed. Qof aad isku ahaydeen saaxiibo aad isku jecel balse kibir darteed aad u kala fogaateen. Jacayl la qariyay cabsi darteed. Mararka qaarkood qofku wuxuu ka xishoodaa inuu yiraahdo waan ku jecelahay, waan ka xumahay, waan ku faanaa waxaas. Laakiin marka fursaddaasi dhammaato, qalbiga qofka ayuu hadalkiisu ku sii jiraya. Qodobka afraad ee qofku ka qoomameeyo waxa weeye shaqo badan oo dhabar jab ah iyo nolol yar. Dad badan waxay ku bixiyeen noloshooda shaqo joogto ah, lacag ururin, mas'uuliyad aan nasasho lahayn, iyagoo leh marka aan nasto ayaan farxi doonaa. Laakiin nasiib darro mararka qaar waqtigii farxadda la rabay wuu dhaafaa. Carruurtu way koraan, waalidku wuu geeriyoodaa, jidhkuna wuu daalaa wuu gaboobaa. Qoomamada halkaas ka dhalata waa waqti aan haystay laakiin ma aanan arkayn. Qodobka shanaad waxa weeye naf la dayacay. Dad badan waxay daryeelaan shaqo, qoys iyo dad kale, laakiin ma daryeelaan naftooda. Ma nastaan, ma hadlaan, ma muujiyaan dareenkooda. Sanado badan kadib qofku wuxuu dareemaa daal maskaxeed, qalbi buuxsamay, dad iyo daal, nolol aan macno u lahayn.
xaqiiqada ugu muhiimsan waxa weeye qoomadu waxayna baraysaa cashar cad. Noloshu ma sugto ilaa aad u diyaar noqonayso. Waqtigu ugu muhiimsan iyo waqtiga munaasib wax la yiraahdo ma jirto. Cabsi mar walba way jiri doontaa, laakiin tallaabada aad maanta qaado ayaa go'aaminaysa inaad berri ku noolaato nabad ama qoomamo. Ugu dambeyntii, maalin maalmaha ka mid ah adiguna waad istaagi doontaa. Waqti ayaa dib u eegi doontaa. Su'aashu waxay noqon doontaa, ma odhan doontaa waan isku dayay, mise waxay odhan doontaa haddii aan isku dayi lahaa. Mawduuceenan maanta waa xasuusin. Noloshu way kooban tahay. Jacaylkaaga muuji haddaad cid jeceshahay. Riyo bilow, cafis buuxa bixi, ku hadal runta, ku noolow noloshaada aad jeceshahay, ka biqin dadka kale maxay ku odhan doonaan. Intaan mawduucan lamida ku kulmi doono waxaan ilaahay nabad iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.